macbadadan qadiimiga ahi waa hadhaaga boqortooye xooggan oo budhasta ahayd waana taariikh xasuusinaysa dadka rakhiin qaranjabkoodii hadda waxay ku jiraan dadka ugu saboolsan Myanmar 5 sano ka hor waxay cadhadii kula jeesteen dariskoodii muslimiinta ahaa dad badan ayaa ku dhintay rakhiin waxaana la tirtiray degmooyin badan oo Rohingya ah dhibanayaashii badbaaday waxay ku xidhan yihiin xeryo ay dawladdu leedahay tani waxay bilow u ahayd colaad qadhaadh oo u dhaxaysa qoomiyadaha waxayna Bangladesh u barakicisay 700 oo kun oo qaxootiya sanadkii hore laakiin dadka rakhiin naxariis uma hayaan dariskooda oo iyagaaba cabanaya waxayna faqrigooda u aanaynayaan dawladda oo waxay leeyihiin dooni mayno Rohingyaha inkastoo ay nabad ku wada noolaan jireen waxa isbedelay ciduma hubto ninkan oo u dooda siyaasadda dadka rakhiin waxa uu leeyahay waa in muslimiinta Rohingyuhu ay u hoggaansamaan sharciga muslimiin muwaadiniin noqon kara way jirayaan qaynuunka muwaadinimada balse dhinaca kale waynu hubnaa in muslimiin badan si sharci darro ah uga yimaadeen Bangladesh maanta qaybo ka tirsan rakhiin waxaad ku arki kartaa dad Rohingya ah bulshooyinka rakhiin waa kuwa kala qoqoban sawir qaadayaashii duubay muuqaalkan waxaa il gaara ku hayay booliis dharcad ah dadka Rohingyuhuna waa kuwa ka qarsan indhaha dadka booqanaya gobolkan ugu dambayntii waanu ka dhuumanay booliiska waxaanu helay koox Rohingya ah oo beer ka shaqaynaysa khatar ayay u tahay inay nala hadlaan waxaanu qarinay wajiyada dadkii nala hadlay waxay noo sheegeen inay ku nool yihiin cabsi dhaqdhaqaaqooduna yahay mid la xayiray aad ayay uga fog yihiin xuduudaha Bangladesh waa safar khatar ah laakiin hadday awoodaan waxay ku biiri lahaayeen qaxootiga ku sii qulqulaya Bangladesh